Chelsea oo weerar ku qaadaysa xidiga kooxda PSG ee reer Brazil ninka lagu magacaabo Neymar Jr de Silva Jordan Sanchez oo iska diidayo in uu ku biiro naadiga kooxda kubadda cagta ee Manchester United qodobadaas iyo qodobo kale oo xiiso badan ayaan ku soo qaadan doonaa khiyaarta ayna daawanaysay maalin wacan aan ku horeynay laacibka reer Faransa ninka lagu magacaabo N'Golo Kante ayaa loogu baaqayaa in uu ka tago garoonka Stamford Bridge oo ay ku ciyaarto naadiga kooxda kubadda cagta ee Chelsea xidiga ayaa waxa uu dalab ka helayaa macalinka reer Faransa ee leeliye naadiga kooxda kubadda cagta ee lagu magacaabo Real Madrid ee Zinedine Zidane xidigan ayay Chelsea ku doonaysaa in ay ku fasaxdo adduun lacageed oo dhan 110 milyan oo ganiga sterlinka ah dhanka kaleete kooxda kubadda cagta ee Chelsea ayaa iyadana danaynaysa in ay soo qaadato laacibka reer Brazil ninka lagu magacaabo Neymar Jr de Silva oo lagu qiimeeyo adduun lacageed oo dhan 250 kun oo ganiga sterlinka ah xidigaasi ayaana noqon kara xidiga ugu qaalisana ee abid soo mara dunida Chelsea ayaa cadaadis kala kulmi karto kooxda reer Bulgaana ee lagu magacaabo Barca iyadoona xidigaasi si weyn uu u danaynayo ku biirista kooxda Barcelona oo iyadana danaynaysa in ay la soo wareegto ugu dambeyntii laacibka kooxda kubadda cagta ee Borussia Dortmund una dhashtay wadankaasi England ninka lagu magacaabo Jordan Sanchez ayaa lagu soo waramayaa durbaba in uu iska diidayo in uu ku biiro naadiga kooxda kubadda cagta ee Manchester United xidigaasi ayaa lala talinayaa in uu ka tago kooxda Borussia laakiin uu ku biiro koox aan Manchester ahayn dhanka kale Manchester City ayaa dharbaaxyo xanuun badan soo gaartay dhaawicii Aguero taageerayaal aad u fara badan ayaa ka murugsan intaas ayaan ku soo afmeerayaa